السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد مقال كنا مانتا هضبا مقال كنا مانتا وحن كغا هادلينا wiil gubay kiniisad isagoo isla markaasi ka carooday kitaab ay gubeen qolo gaala ah. haddaba kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. maxkamadda Otta ee dalka Norway ayaa waxay xukuntay wiil Soomaali ah isagoo lagu soo eedeeyay in uu gubay laba kiniisadood. ninkan ayaa waxay da'diisu gaaraysaa 28 jir, waxaana lagu eedeeyay in uu gubay laba kiniisadood oo ku kala yaala laba deegaan 20kii bishii Febraayo 2018 in uu si ula kac ah u gubay kiniisad. haddana wiilkan Soomaaliga ah bil kadib waxa uu gubay kiniisad kale. kiniisadaas uu gubay dabkii ma wada qabsan oo qayb ayuu dabkii qabsaday oo khasaarihii soo gaaray kiniisadii hore waa ay ka yareed. kiniisadii hore waxaa khasaartay lacag gaaraysa $200,000, laakiin kiniisadan ma ay gaarin khasaarihii markii hore. wiilkii waa la soo qabtay, maxkamadda ayaa la keenay. markii la weydiiyay sababta uu u gubay labada kiniisad waxa uu ku jawaabay hadalkan. waxa uu sheegay in uu ficilka uu sameeyay ay ku sababtay xanaaq dartii, yacni waxa uu ka xanaaqay kitaab ay gubayeen qolo gaala ah. kitaabkaasna waa kitaabkeena Quraanka. intaas ayuu ka xanaaqay kadibna waxa uu gubay laba kiniisadood, laakiin kiniisadii labaad dabdamiska ayaa ka soo gaaray oo aad may wada guban. sidoo kale waxa uu ka xanaaqay in markii kitaabka la gubay aysan cidna ka soo hadlin. sidoo kale waxa uu ka xanaaqay in aan la xukumin dadkii gubay kitaabka oo lagu xukumin xabsiga ama meelo la mid ah. sidoo kale waxa uu qirtay dambigii uu galay. maxkamadda ayaa waxay yiraahdeen ninkan la soo baaro caafimaad inuu miir qabo iyo inuusan miir qabin. waxay sheegeen haddii uuna miir qabin in ay sii daynayaan oo xukunka laga daynayo, haddii laakiin uu miir qabo waa la xukumayaa. haatanna waxa uu ku jiraa xabsiga. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egyahay. haddii aad muuqaalka ka heshay like saar, sidoo kale u sheer garay asxaabtaada si aan u helno daawadayaal fara badan. mahad.